بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بضا وضيال كسر دواذا برنامج كيني دبك هذا وجهرين رمضان مبارك ضمان ملك استوى كسر جنتين داودياش إن برنامج هذا إن الله صعدا يجود هم بومضة إسلام كاهي ومضة صوماليات بوحنا لنا هاي رمضان مبارك maadaama bishii barakaysanada Ramadaan ay noo bilaabatay maantana ay kow tahay intaas kadibna qodobkan dabka hadal waxaynu ku eegi doonaa dab xooggan oo xalay ka dhacay ama ka kacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay dhibaatada iyo khasaaraha baaxadda uu geystay dabkaasi waxa kale oo gurmad markii ugu horeysay u diray dowladda deegaanka Soomaalida oo isla xalayba ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida iyo booliiska iyo dabdamis ay galbinayaanba waxay gaadheen magaalada Hargeysa oo ay qayb ka qaateen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Naaf Soomaali waaweyn ayuu page-kiisa Facebook ku soo qoray oo ugu tacsiyeynaya dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadaas ka soo gaadhay dabkaasi ka kacay caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxa dhinacayga fadhiya ilka case oo aynu wax ka weydiin doono bal guud ahaanba xaaladahaasi ilka case soo dhow وما سنت أدوها يقول داودياش بال رمضان كريم رمضان مبارك dhammaanba dadka Soomaaliyeed ee muslimiin tahay iyo kuwa muslimiinta ee Soomaalida aan ahayn ee dunida ama waxa leenahay Ramadan Mubaarak bishu maanta waa kow inkastoo ay jiraan meelaha qaar oo maanta aan laga soomin ama deegaanada Soomaalida ama caalamka wadamada dunida Islaamka oo qaarkood maanta aan laga soomanayn sababna uga dhigay inaan bishii la arkin laakiin in badanna way soomayeen anagu aan ka midnahay waana kow bisha Ramadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in khayrkeeda uu waafajiyo wii loogu dambi dhaafo loogu naxariisto naartana lagu xareeyo oo naga dhigo aysan Allah naga dhigo aamin way bal intaas hadii uga soo gudubno dab khasaare xoogan dhaliyay ba xalay ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ganacsato badan baa ku hantay iyo maalba beelay bal si guud sawir guud sida wax u dhaceen iyo xaalku sidoo ah وما سنتهي جلده مركلة حالة يوم بيهاي مركي سوق قوي مجالده هرجيسة ودب كان كعي دب كان وحا وجيسي خسارة أضرب بالعرن أو بحد له أنتي ملايين دولارها أيالا شيء إن أي كبر برتي وحا وها سوق وين أو جناعسي نوع البئس وجرة وحوي كجري بها سوق أي ضد أوفر بدن جناعسي جود ويالي أيوها سوق أي كتير ثنايين ريه جيسة أيوها سوق هنتي ياد أبدن أي تالي أيوها وحوها سوق بربر كيسة بحد أولي هي كلي أن لقدر من هرجيسية سومالا لكن لقدر يمي ديجانا درسكا waxa ka dhacay Hargeysa wuxuu wax murugale tiraanyale xanuun badan dadkii hantidooda ay ku burburteen waxa leenahay xanuunka waa in la qaybsanaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo dameer leh oo damqasho leh waxaan leenahay waa inay ka qayb qaataan sidii loo gurman lahaa dadkaasi waxay isugu jireen dadka suuqa u ganacsanayay intaas oo dabaqad hoose ama mid dhexe ama mid sare oo dadku qof walba oo meesha wax ku lahaa ama dadka meesha ku lahaa dad kala duwan bay ahaayeen dad baa hanti badan ku lahaa dad baa hanti meel dhaxada ku lahaa dad baa hanti yar oo wax way iska caadi ah ku lahaa intoo saaka waxay ka sameeyeen yihiin dhibaatada iyo baaxadda ay leedahay dabkii xalay suuqaasi ka kacay waxaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan qaar ka mid ah oo kooban dadkii ma wada hadli karaan intii laakiin warbaahintu ay la hadashay waxaan arkay gabadh aan hadli karin bixita oo afartan ilbiriqsi laga duubay oo meherad ay meesha ku lahaayeen ay ku burburtay dabka oo shalay hadda ladnayd oo caadi ahayd wax badan ay u qorshaysnaayeen soo dhaweynta bisha barakaysan Ramadaanka sidii ay u soomi lahayd in badan dadka ganacsatada xitaa waxay ku xisaabtamaan bisha barakaysan ee Ramadaanka sidii ay hanti badan ay u soo xareyn lahaayeen maadaama xilligan ay dukaamaysiga iyo adeegu ama adeegashada dadka ay u badan tahay oo diyaar garowga iyo maarta inta lagu jiro bisha barakaysan Ramadaanka dad badan marka shalay hadda xaaladoodu sida ay ahayd qorshayaashii iyo wixii ay ku fikirayeen ama ay ku haminayeen ee u yaalay wax badan maanta xilligan hadda aan joogno in hadlayno waxa kale oo jira nin oday aha
oo dukaamo aad u badan suuqan ku lahaa oo isagana warbaahintu la hadashay oo dabcan iimaan badan uu ka muuqday iyo maartay inuu ku qanacsan yahay qadarta rabbi iyo musiibadan ku dhacday oo laga weydiiyay bal wixii hanti ahaa ee meesha ku lahaa ee meesha u taal ee ganacsi ahaa iyo waxa weeye dareenkiisa iyo sida maartay uu u arkay xanuunka ay leedahay dhibaatadan ku habsatay 10 dukaan baan kaga gubatay ilaa 10 dukaan marka aad ilaa kada 10 dukaan hantida taale qiyaastooda qofka aqliga leh waa dareemi karaa ninkii shalay hadda 10 dukaan lahaa oo xasiloona oo si caadi ah oo faraxsan u noolaa oo wax badan ku fikirayay maanta oo 10kiisii dukaan ay gubteen oo ay bas beeleen oo laga yaabo inaan waxba laga bixin ba ama hadii laga bixiyo wax laga bixiyo uu yar yahay ama waxba laga bixin ba sida soo uu sheegay 10kii dukaan meesha ay ku burbureen waa dareemi kartaa xanuunka ay qofkaasi walwalka iyo murugada ee teenayada ay ku hayso bal aynu daawadayaasha ugu duuno odaygaasi hantidiisa ay ku burburtay suuqaasi xalay gubtay oo ka waramayay bal qiyaastii hantida kaga luntay meeshaasi iyo kaga burburtay sidoo kale erayadiisii aadka iisoo ii darangeliyay waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi maanta shalay يعني waxaanu ahayn dad shaqaysanaya hantidooda haysta maanta cayr baan nahay 10 dukaan baa ka gubatay $400,000 ka badan yaa kaga gubatay marka bal waxaan jeclahay daawadayaasheena inaynu ugu duuno muuqaalkaasi una soo duceeyaan in Ilaahay u boogadhayo oo bedel khayr qaba oo siiyo isaga iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed ee ay dhibaatadaas ka soo gaadhay dabkii xalay ka dhacay magaalada Hargeysa haddaba waxaa burburkayga taagan baashe oo ka mid ah dadka caawa halkan alaabtoodii ay ku gubatay baashe soo dhawow bal ka waran khasaare inta leega caawa inuu soo gaadhay wallahi khasaaruhu waa mid baaxad weyn waana wax qadar alla ku dhacay iyo arrin xumo ah yacni maamulka suuqa oo xumaaday cudurri noqday meel laga gala iyo meel laga baxaba la waayay maayirku uu taag waayay wuxuu baan isleeyahay nadaafadda suuqu imika ma bilaabmaysaa haddii la yidhaahdo oo maayirkuna uu taag helaya haddii la yidhaahdo oo suuqu kala hagaajin doono laakiin waa annaka noo gaara oo aanu huursanay weeyaan waxaan cilada keenay iyo meel dadku ay ka baxaan iyo meel naftaada aad u martaanad ka helay suuqi dee qadarkaasaa ku dhacay caawa dadku waa caydhaysan yihiin waxa weeyaan ilaahun baa ka caawini karaa way baashe goomuu dabku bilaabmay dabku wuxuu bilaabay ilaa 8 fiidnimo ilaa imika saacadu ay tahayna way socotaa ilaa imikana dabku way socotaa ida kowdii dheeraad tahay waaye baashe hantida kaa khasaartay caawa halkan kaaga gubatay intaad ku qiyaasay anigu 10 meheeradood baan suuqa ku lahaa 10kiiba way ku gubteen store khayr baa iga baxay lacag $400,000 ayaan qiyaastii ayaan imika isleeyahay saamaynteeda aniga iga gaargay ay inay tahay lacagteedu waaye maxaad isleeyahay tan way ku xigi doontaa tan waxay ku xigi doontaa insha Allah bidnillaahi kariim in Ilaahay caawinaqna siiyo dadkuna ay wax kala gartaan oo nidaamku dib u hagaago ayaan Ilaahay ka rajaynaya way daawadayaal haddii aynu intaas uga soo gudubno muuqaalkaasi ilkaase dad fara badan oo mas'uuliyiin ka hadlay dhibaatada Hargeysa ka dhacday yaa ka mid ah waa maasan tahay dad badan oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba waa ka hadleen arintan inay ka hadlaanna waxay ku dareensinaysaa ama ay sawir guud ka bixinaysaa xaaladda adag iyo musiibada meesha ka dhacday baaxadda iyo culayska ay leedahay haddii aynu horta aan Hargeysa ku soo yar sugnaano markii dabku xalay uu bilowday baaxadda iyo culayska uu leeyahay la arkay waxa warbaahinta la hadlay maayirkii Hargeysa ama duqii Hargeysa oo dadka reer Somaliland مسؤولين iyo shacab bale fareen u diray oo yiri qof walba wixii awoodo kii cagaf awoodo kii booyad biyaha awoodo kii carra awoodo qof walba wuxuu awoodo hal yimaado meesha si gurmadka loo fidinayo dadka hantidooda meesha ay ku gubanayso waxa ay uga qayb qaataan arinta xilliga uu hadlayay oo dareenkiisana laga dareemay ama maar shucuursi laga dareemayay xaaladda iyo dareenka iyo maartay dhibaatada meesha ka jirtay oo uu ciidamada dadamiska Soomaaliland oo mahadbalan u celiyay hadalkiisa waxa uu keenay in dad badan oo Soomaaliyeed ay ka danqadaan oo arintan ay ka hadlaan oo ay fariimo warbaahinta iyo baraha bulshada ay soo mariyaan iyaga oo ka xun tiraanyada iyo xanuunkana la wadaagaya dadka hantidooda ay
ku burburaysa ama ay ku gubanaysay suuqa suuqu xalay soo soo bilowday dabka ka kacay xalay soo u bilowday ilaa maanta ilaa saa ku soo gaaray marka waa dareemi kartaa waana suuq aad u ballaaran oo ganacsi nooc walba ah waxa weeye meesha uu ka jiray waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay oo sheegay ama fariin u diray dadka reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa iyo dadka hantidoodu suuqan ay ku burburtay oo sheegay in xanuunka iyo maartay tiinaayada ay la qaybsanayaan ilaahayna maartay uga bariyay in badal khayr qabo siiyo waxaan soo qaadanaynaa siyaasiyiinta iyo dadka mas'uuliyiinta kala Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo isagana fariin la wadaagay dareenkiisa uu ku cabirayay dadka hantidooda meeshan ay ku burburtay ma yaro dad badan oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin iyo shacab isugu jira ayaa warbaahinta iyo baraha bulshada intaba taageero iyo garab istaag iyo xanuunka oo ay la qaybsanayaan u muujiyay reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa iyo dadkii ganacsigooda iyo hantidooda uu burburka uu ka soo gaaray suuqan weyn gubtay ama burburay bal aynu imano gurmadka ka yimid dhanka dawladda deegaanka Soomaalida oo ah kan dibadda uga yimid marka laga yimaado gudaha Soomaaliland ka kaliya dibadda uga yimid horta deegaanka Soomaalidu dabcan hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dil dhow wafdi ha u diro Hargeysa waxaad moodaa siyaas ahaan marka la fiiriyo inay yaraha adag tahay laakiin markii dhibaatooyinka noocan ah ay dhacaan oo kale waxaa la diraa sida dadka odayaasha dhaqanka oo kale kuwaas sidoo aan xad lahayn oo wixii gurmadaha iyo wixii fariinaha ay ka wadaan deegaanada ay ka yimaadeen gaarsiiya dadku ay musiibadu ku dhacday sida horeyba u dhacday oo kale waxaan rajaynayaa madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisu in dadkaasi gurmad هيل iyo hooba in waxa weeye loo diro oo gaar ahaan iyadoo loo sii marayo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada maadaama dhanka siyaasadda dil dhahdo mas'uuliyiin oo koonfurta ka soo xagga loo diro inay adkaanayso deegaanka Soomaaliya laakiin waxay ahaayeen deegaankii ugu horeeyay ee dad mas'uuliyiin ah oo heer deegaanaha ay gaaraan magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa gubanayay oo ay la tagaan dabdamis mas'uuliyiinta waxa hogaaminayay hogaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida oo Bashir Dubad taliyaha booliska ciidanka ilaalada madaxtooyada la taliyaal dad mas'uuliyiin ah oo fara badan ayaa tagay ilaa 4 dabdamis bay wateen oo ay ugu tala galeen in ay kala qayb qaataan daminta dabkan iyo musiibadan kacday hogaanka nabadgelyada oo mid kamid ah warbaahinta ama telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliland kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay in fariintii duqa Hargeysa ay taabatay isla markaana ay dareemeen dhibaatada meesha ka jirta iyo dabkan culayska uu leeyahay saadaraadna maadaama dad Soomaaliyeed oo muslimiin ay yihiin ay ku qasbanaadeen in ay ka soo jawaabaan hadalkii maayarka isla markaana ay u yimaadaan sidii walaalahood ay uga qayb qaadan lahaayeen dhibaatada meesha ka jirtay oo mid aad iyo aad culayskeeda u leh ay ahayd marka arrin xanuun badan oo aad u tiiraanyo badan oo aad u murugo badan ayaa waxa weeye meesha ka dhacday dadkii shalay hantiilayaasha ahaa ee hantida badan haystay ayaa maanta waxa weeye cayra oo farmaran oo gacan maran bal aynu ku soo gabagabayno ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya af Soomaali waa weyn buu ku soo qoray page-kiisa Facebook oo ugu tacsiinayay dhibaatadan ka dhacday suuqan Hargeysa maxaa kamid ah waxyaabo kale waxa kamid ah qoraalka horta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waa af Soomaali marka dadku ay maqlaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed baa hadlay qofku waxa uu sawiranayo waxa weeye in ama uu ku hadlo af Ingiriis ama af Ahmaari ama uu ku hadlo af Oromo laakiin intaa waa ka duwanaa maadaama dadka uu la hadlayay ee fariinta u diray ay yihiin dad Soomaaliyeed waxa markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu boggiisa Facebook uu ku leeyahay uu soo dhigay qoraal af Soomaali ku qoran oo waliba af Soomaali sax ah oo waliba kii waqooyiga laga hadlayay fariintana waxa ku tusinaysaa dhibaatada meesha ka dhacday culayska ay leedahay bayday ku dareensinaysaa in ay gaadhay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo uu ka soo jawaabay oo uu qoraalkan soo diray ujeedka uu doonayay isagu hakala haad laakiin muhiimadda waxaan ka soo qaadanaynaa qoraalkiisan iyo nuxurka iyo macnaha qoraalkiisa uu leeyahay ka soo qaadanaynaa qoraalkiisa af Soomaali ku qoran waxa uu ku yiri waxaan aad uga naxay oo aan ka tiiraanyooday dabka ka kacay suuq weynaha bartamaha Hargeysa kaas oo khasaare ballaaran u geystay hantidii shacabka
hadda lama qiyaasi karo khasaaraha waxa saal ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed Waay. Soomaaliya ku soo qoray bogiisa Waay. in ka dad Soomaali ah ay u qoreen qoraalkan waxa uu leeyahay qaybta kale qoraalkiisa uu ku yiri waxaanu shacabka Soomaaliland la qaybsanaynaa murugada dhibkaasi ku yimid waxaanu u sheegaynaa inaanu garab taaganahay waqtigan aadka u adag waxaanu eebbe ka rajaynaynaa in uu khasaarahaasi dheef sida uu ka wada macnaha ma faa'iido uu ugu bedelo xilligan aanu ku jirno bisha barakaysan ee Ramadaan eebbe ayaa ina leh xaqiisa waanu ku noqonaynaa ayuu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyay وترجيع معناها حاوي ووحى لو جبها هي تصاهن قف مسلم كمان مصيبة كل على كل إنه إنا لله وإنا إليه راجعون إنت وإنا لله وإنا إليه راجعون بكسو جب يقول الكيسة وأف صومالي ولكن أفك صومالي أما أف صومالي أيوب بقيس كسو قري وطبعا تدت صوماليات أي أقرين وكل قيب سنة يحنونك يترانيد يمرجيدا تذكر هذا الجيسة أما جنهار الصوماليان سوقي ويناء اللي لقى نعسني أي دبعته كسو قال تذكر سوقا marka la fiiriyo sida dareenka dadka u soo jiitay sida uu u soo jiitay dareenka dad badan oo mas'uuliyiin ama Soomaali ah ama aan ahayn